daawadayaal war degdeg ah oo hadda naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in qarax markaasi culayskiisa iyo sidoo kale xajmigiisuba culus yahay oo markaasi ka dhacay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. Kooxo hubeysan ayaa gudaha u galay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya kadib weeraro qaraxyo oo isxigay. Waxay dadka reer Muqdisho maqlayeen laba qarax oo aad u culus oo ka dhacay goor dhoweyd magaalada Muqdisho gaar ahaan wasaaradda waxbarashada. Haddaba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxaasi xagga wariye markaasi lagu magacaabo TV-ga Astaan u shaqeeya oo Shaaficiino la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in uu ka badbaaday qarax markaasi oo aad arkaysaanba xafiiskiisi oo guud ahaanba burbur iyo isaga markaasi dhaawacyo ay soo gaareen. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dhanka kalena ila wareedyo dhinaca amniga qaar ka mid ah waxaa la hakiyay duulimaadyada diyaaradaha caalamiga ah markaasi tagayay magaalada Muqdisho oo maanta safarkoodii guud ahaan la baajiyay. Qaarkood ilaa hadda ma soo aysan degin sabab la xiriira digniino ama xogo la helay oo cadeynaya inay jiraan weeraro argagixiso oo ku wajahan garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale guud ahaan magaalada Muqdisho. Diyaaradda Qatar Airways iyo sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines ayaa iyaguna tagin maanta magaalada Muqdisho. Sidoo kale shirkadaha Ethiopia Airlines ayaa iyaguna digniino culus markaasi muwaadiniintooda iyo sidoo kale diyaaradda Ethiopian Airlines markaasi u sheegay oo u xaqiijiyay in ay ka digtoonaadaan. Saraakiisha garoonka qaarkood ayaa sheegay in macluumaadka ay si dhow ula socdaan iyagoo ay jiraan baaritaano gudaha laga sameynayo. Arrintan ayaa waxay markaasi salka ku haysaa iyadoo 24 saac ee ugu dambeeyay markaasi laga walwalsanaa amniga caasimadda oo xaaladoodu tahay qirinqeyr inkastoo laba qarax oo culayskiisu uu aad u culus yahay uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Sawiradan aad arkaysaan waa sawiradii ugu dambeeyay ee hadda ay nala wadaageen muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in wixii halkaasi ku dhintay iyo sidoo kale ku dhaawacmay in Ilaahay u sahlo wixii dhintay in Ilaahay u naxariisto. xogihii ugu dambeeyay ayaan helaynaa. Wararkana waa warar degdeg oo ka soo baxaya magaalada Muqdisho. Wixii war ee ka soo kordha magaalada Muqdisho halkan oo ah warbaahinta Google News ayaan dib soo gelin doonaa. Fadlan muuqaalkan si share gareey si ay ugu digtoonaadaan dadka laga yaabo inay ku safrayaan magaalada Muqdisho, laga yaabo inay ka baxayaan wadamada kale ee adduunka. Wixii xog ee ka soo kordha halkan oo ah warbaahinta Google News ayaan dib soo gelin doonaa.